بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا وناكسن walaalay qaaliga aan jeclahay meel kasto adduunka daafiis aad ka joogtaan oo diga daawanaysaan ku soo dhawaada channelkayga dhool dhalaal cooking hadii Allah awoodal uu qadar insha Allah inta maxaa ku hagaajisan doonaa baby food maasha Allah tabarakallah ilmaha waxtar u leh ku kobcinayso lafaha u dhisayso xoog uu ka helayo insha Allah tacaala ayaan halkan ku hagaajisan doonaa maxaa kamid ah chicken waan soo dhaqay biyo kulul cusbo iyo liin dhanaan iyo qal ayaan ku soo hagaajiyay insha Allah intana maxaa ku haysanaa soor ayaan ku haysanaa galeeyda markii la shiido soor ayay noqotaa Soomaha sidoo kale halkan maxaa ku haysanaa bocor cad ayaan ku haysanaa xabad yar oo baradho ah iyo jab kaarood ayaan halkan ku haysanaa insha Allah intaas ayaan isku hagaajisan doonaa oo ka sameynaynaa hadii Allah awoodal uu qadar insha Allah bocorka isticmaalana waa kaasaa ilmaha 9 bilood 10 11 ilaa 12 bilood ilaa iyo sanad wixii ka weyn waa la siin karaa insha Allah haddana maxaan guda galeynaa karintii hal mar ayaan weel ku shubaa sidaas ayaan u hagaajinaa insha Allah digsigii aan ku karin lahaa ayaan ku soo shubay biyo nadiif ayaan ku soo shubay waa ujeediin wax cusbo ah iyo wax saliid ah oo aan ku daraayo ma jiro insha Allah markii uu bislaado uu diyaar noqdo jeex liin dhanaan ayaad ugu miiri kartaa haddana maxaan ku darayaa waa ujeediin soorta ayaan ku daraa insha Allah waxa dhan hal mar ayaan dabka isla saarayaa waxaan kala karinayaa ma jiraan insha Allah wali dabka ma u shidin hadda ayaan dabka u shideynaa insha Allah saas ay la soconaysiin walaalahay qaaliga ah haddana dabka ayay noo saaranta u jeediin sidaas ayaan u qasayaa qasitaanka hadii aad ka joojisid kuskus ayay ka yeelanaysaa maadaama soor ay meesha ku jirto qudaarta kaliya hadii ay tahay markii aad dabka saartid waad ka danaysan kartaa laakiin hadda soor ayaan ku karinaynaa Soomaha insha Allah marka waxaan sameynaynaa sidaas ayaan qasitaanka ugu wadeynaa marka joojinayno ilaa aan isdhaano maasha Allah ma naga soo kuskus ma naga yeelanayso sidaas ay qasida ugu wadaysaa insha Allah walaalahay sidaas ay la soconaysiin soo dhawaad ayaan idin leeyahay asxaabay wali dabka ay noo saaranta maasha Allah haddana si noo karayso u jeediin qudaartii wixii wali si fiican u bislaanin maasha Allah marka hore dabka ayaan u gaabiyay haddana waxyar dabka ayaan u dheereynayaa sidaas ayay noogu bislaanaysaa insha Allah markii ay diyaar noo soo noqoto ayaa inoo ballan ah markay qabowdan waan shiidi doonaa si ku soo baxdan waad ila arki doontiin insha Allah hadda qudaartii wax dhan ha isku bislaadaan markaas ayaan dabka ka damin doonaa walaalahay qaaliga ah maasha Allah markii ay noo bislaatay oo aan dabka ka soo damin oo soo diyaarin waa taasa chickenka u jeedin wuu ku bislaadayba qudaarta kalena waa taasa kaaroodka waa ka bocorkina waa kaasa maasha Allah baradhadina waa taasa hadda haynoo qabowdo markay noo qabowdo ayaan shiidi doonaa insha Allah walaalahay qaaliga aan jeclahay laga faa'iideysto alaabtan maasha Allah asxaabta kale looga sii faa'iideeyo sidaas ayaan idin rajeynayaa insha Allah inaad ka heli doontaan waan jeclahay soo dhawaada maasha Allah tabarakallah markii aan soo dhameynay oo aan soo shiido waa taasa sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday maadaama ay badneed intii ii hartay weel dabool ayaan ku shubay fridge-ka qaybta barafka ayaan geliyay si aysan iiga halaabin insha Allah waqti kale ayaad siisan kartaa intaad u kululeyso meesha aan chickenka ugu daray hilib waad uga dari kartaa malayna waad uga dari kartaa maasha Allah tabarakallah fadlan hadii aad nagu cusub tahay walaal subscribe noo dheh meesha gaduudan taaba gambaleelkana sii taaba insha Allah si muuqaalada ay isku dhaafin hadii aad ka hesho like dheh la sii wadaag asxaabtaada insha Allah wixii comment iyo ducaan hoos noogu reeb soo dhawaad ayaan mar kale idin leeyahay waa u jeedin cunto nafaqo leh ilmaha lafaha u dhisayso laga faa'iideysto insha Allah sidaas iyo nabaadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu